مدن محمد جامع عبقال oo kamida siyaasiyiinta rugcadaaga ah ee gobolkan oo dal ka soo jeeda oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada Boorame ee xarunta gobolkan ayaa waxa uu shirkiisan jiraa'id si adag ugu hadlay muranka xagga maamulka ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka aloosna degmada Saylac ee gobolka Salal siyaasi Maxamed Jaamac Cabgaal waxa uu si weyn u falanqeeyay taariikhyadii soo jireenka ahaa ee degmadaasi Saylac ay ku leeyihiin beelaha deegaanka gobolkan wuxuuna carabka ku adkeeyay in beesha uu ka soo jeedo ay degmadaasi Saylac maamuladeeda ay leedahay isla markaana Boorame iyo Saylac ay yihiin magaalooyin ishuwan oo aan la kala qaadi karayn siyaasi Maxamed Jaamac Cabgaal oo arimahaasi la fagurayana waxa hadaladiisa kamid ahaa waa markii labaad amba saddexaad taariikhda intii Saylac soo jirtay ee food ka dhaco sanduuq wala geeyo weligeed Saylac Somaliland horteed sanduuq doorasho lama geeyo Somaliland in ay doorasho gashay laba jeer ayaad la geeyay doorasho oranaysa qof baa la dooranayaa waati baarlamaanka ee 2005 iyo tan golaha deegaanka ee maanta doorashadii golaha baarlamaanka ee maanta la fadhiyo waxa awdal loo qiimeeyay sidii sharciga Somaliland marka xeerka doorashada loo sameeyay baarlamaanka 13 qof 13 ka waxa kamida oo halka waa xildhibaanka xildhibaan Cali Araaye ee maanta runtii malaha markii saddexaad afraad toddobaad telefishinka iyo saxaafadda soo fadhiya haday shalay 7% say awdal ka ahaayeen doorashadii soo baxday haday Saylac 17 ka noqdeen maanta way dadaaleen waxana u suurtageliyay gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha magaalada waa gobolka Salal iyo magaalada Saylac labada oo maamulka u joogay labaduba laba ilmaadiradii Cali Haye komishanka doorashooyinka ee degmada gudoomiyaha ninka ka iyo xoghayaha u qorqorayay labaduba laba ilmaadiradii Cali Haye maxaa hadaba Cali kolkay sida u dadaaleen intaas la heleen 17 bay soo gaareen 7 soo heleen wadadaalka noocaas reerkii soo sameeyay ee xukuumaddu gacanta ku siisay ee komishanku gacanta ku siiyay kama cabanaynaano ma jiro cid 7 halkay ka keeneen maxay u heleen ceeb dhaqto inamada 10 ay reer Saylac ee beesha Sabaroona ee sharciga ku soo baxay sharciga isku doortay haddana markii Somaliland mas'uuliyiinteedii erga ula tageen haday dal iyo dad jacayl dartii waliba ka tanaasileen ninkii labaad xaq u lahaayeen hadii wadad bahad oo maatiin taasi macnaheedu waxa weeye in la kala gooyo ilmaha la isku qabsaday diidayaan iyaga la dee dadkoodii soo doortaan jooga iyagiiba mas'uul ka noqday inay haneeyaan oo ka tanaasilaan ku xigeenkii waxay la tahay damiir wanaagii waxaan go'aamiyaa maanta dadkii aan wax wada lahayn walayaasheedii dhammaan hal isla ogaado haddii marnaba ku xidhay haddii arrinka Saylac sanduuqa Saylac la dhigay hadduu ka xeer duwan yahay ka Boorame iyo Berberi iyo Burco iyo Ceergaabo oo meel kale looga talinayo go'aanka meel kale laga sugayo meesha kale laga sugayaa la xeeray ani halka Saylac laga xukumo ayuun baa laga xukuumaddu hays cadayso yaan erga iyo uga qalbo wasiir la diro yaan lagu dawaqin Cabdi Fataax Ahmed Hadwanaag News magaalada Boorame